Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelkayga Omar Qalinka. Bishii Febraayo sanadii 2024 magaalada Istanbul, Turkiga ayaa laba qof isbarteen si lama filaan ah. Gabadha Soomaalida ah, 27 jir ah, ayaa halkaas u tagtay si ay masterka uga dhigato dhaqaalaha xiriirka caalamiga ah. Waxay ahayd gabadh degan, firfircoon, kuna wanaagsan waxbarashada. Waxa ay dareentay inay Istanbul noqon karto meesha ay ka bilowdo nolosheeda cusub. Waxaa suuqa Grande Bazaar-ka ka shaqaynayay wiil Turkish ah oo la oran jiray Maxamed, 30 jir ah, qurux badan, il furan, oo dadka ajaanibga aad ula qabsan jiray. Maalin, Amal saaxiibteed la aaday suuqa si ay hadiyado uga soo iibsato qoyskeeda ayay halkaas ku kulmeen. Kulankii ugu horreeyay waxa uu noqday mid dan u dhashay. Maxamed waxa uu bilaabay in uu Amal ka caawiyo wax iibsiga, kadibna waxa ay bilaabeen wada sheekaysi. Isfahankoodu waxa uu ku saleysanaa dareen degdeg ah oo aanan la qiyaasi karin. Inkasta oo ay kala dhaqan, diimeed iyo dal yihiin, haddana waxa ay noqdeen laba qalbi oo isku furan. Maalmihii ku xigayna waxa ay bilaabeen in ay ku kulmaan meelaha muhiimka ahna u dalxiis tagaan sida Bosphorus, Seltmate. Maxamed waxa uu bartay sida Amal u fikirto, halka Amalna ay bilowday in ay ka aragto qalbi daacad ah oo ka dambeysa wejigiisa qosolka badan. Amal waxa ay ka cabsatay in xiriirkoodu uusan sii jiri doonin sababtoo ah kala duwanaanta diinta iyo dhaqanka. Maxamed wuu fahmay, laakiin wuxuu ku adkaystay in uu yahay jacaylku wax la jebin karo. Caqabad kasta waxa uu bilaabay in uu barto Qur'aanka, waxa uuna sheegay inuu diyaar u yahay inuu diinta Islaamka ku soo biiro si keliya uu u muujiyo xaqiiqada mustaqbalkooda. Amal waxa ay la dhibaatootay cadaadiska qoyskeeda, kuwaas oo aanan jecel fikrad ah in ay guursato nin ajaanibi ah, xitaa haddii uu Muslim noqonayo. Waxa ay bilowday dhibaatooyinka la kulantay labada dhinacba: qoyska, bulshada Soomaaliyeed ee ardayda la joogto, xitaa lafteeda oo shaki gashay. Bishii May, Maxamed wuxa uu dalbaday Amal si rasmi ah, waxa uuna diyaariyay ciwaan qoys iyo aroos yar oo Istanbul lagu dhigo. Amal waxa ay go'aansatay in qoyskeeda u sheegto si ay raalli uga noqdaan, balse jawaabtii ay heshay waxay ahayd mid qalbigeeda jabisay. Aabaheed wuxuu yiri, Amal, haddii aad guursato wiil aan Soomaali ahayn, ila hadal ma lihid, garacan ilmo, dhibaato maalin walba ayaa raacday. Maxamedna waxa uu dareemay inuu yahay sababta dhibaatooyinkaas. Amal waxa ay go'aansatay in ay tagto garoonka diyaaradaha bishii Juun si ay dib ugu laabato Nairobi, halkaas oo qoyskeedu degan yahay. Maxamedna wuxa uu yimid garoonka isaga oo gacanta ku sida ubax iyo warqad jacayl. Maxamed wuxuu yiri, waan garanayaa inaad adiga tahay. Haddii nolosha inteeda kale aan ku sugo, waan ku sugi doonaa. Jacaylkaagu qalbigayga ayuu qaboojiyaa. Amal waxa ay isku dayday inay hadasho, laakiin ilmadu waxa ay ka hor istaagtay in ay afka furato. Waxa kaliya ay sheegtay waan ku jeclahay, laakiin mararka qaar jacaylku kuma filna. Waxa ay ka wareegtay iyada oo ilmada ka qubanaysa wejigeeda. Bil kadib markii ay kala tageen, Amal waxa ay maqashay war suxul jebin ah. Maxamed wuxa uu ku geeriyooday shil gaari ah oo ka dhacay wadada u dhow magaalada Izmir. Saaxiibkiisa oo la socday wuxa uu sheegay Amal in Maxamed uu dhigay safarkii uu ku aadi lahaa Kenya si uu mar kale uga dalbado Amal oo si toos ah ula kulmo qoyskeeda.
Warqaddii ugu dambeysay boostada email-ka ee uu diray saacad ka hor geerida waxa uu ku qoray Amal haddii aanan imaanin, ogow inaan qalbigayga kugu xirnaa, hana dareemin dembiga jacaylka aan kuu qabay, adiga dartaada ayaa naftayda u haligay, xitaa haddii aysan adiga i helin. Amal waxa ay muddo ku qaadatay xanuunka, murugada iyo cafiska nafteeda. Waxa ay u dirtay qoyska Maxamed warqad ay kaga cudur daaranayso, waxa ayna maqashay in Maxamed hooyadii ay haysato sawir Amal oo uu u dhigay sariirta agteeda. Amal waxa ay ugu dambeyn ku laabatay Istanbul si ay uga qalin jabiso jaamacadda ay u timid. Waxa ay istaagtay masraxa iyada oo xiran dharkii Maxamed ugu jeclaa, waxa ayna halkaas ka sheegtay waxaa jira dad badan oo noloshooda ka taga raad aan marnaba masixi karin. Maxamed wuxuu ahaa raadkii qalbigayga. Sheekadii Amal iyo Maxamed waxa ay noqotay mid ardayda badan ka hadlaan, waxaana laga qoray maqaal, waxaana xitaa laga sameeyay mashruuc filim ah oo ardayda ka samaysay fasalka filimada. Amal weli ma guursanin, waxa ayna sheegtay in qalbigeedu uu xiran yahay xasuusta Maxamed, balse wuxuu ka dhigay qof naxariis badan, jacaylkana fahma, iyo qof u dulqaata murugada. Ugu dambeyn, qisadii jacaylka xanuunka badnayd halkan bay inoogu eg tahay. Haddii aad nala soo gaartay muuqaalka dhammaadkiisa, hanaga iloowin inaad subscribe inoo dhahdo, like inoo saarto, ugu dambeyn gambaleelka aad furato si wax cusub ay kuu soo gaaraan. Waa inoo iyo qiso kale. Goodbye.